wariyaha xaq dhowr بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا يسوي مادين ملاحظة سلاء أورك أسوج إسعافات غرق الصوماليات ويكون قبتين مجالات نيروبي أفريقيا يحذيها جود يمد كم إذا سلكيش أسوج الجمعة على الباشا حاج محمد وحال لقاها الله يا فلكي مع كل غاقين حبنا شك الصحفيين بس أنا هن صحفيين لمن دولالة أو يصاد درين شخصيات مجا صحافات الصوماليات من ودع عن دنيا waxaan cambaaraynaynaa falkii ka dhacay magaalada Hargeysa ee lagu weeraray hogaamiyaha ama gudoomiyaha ururka Aswaj Mudane Daahir Cabdulle Cali Sow falkaas oo ahaa falkan saxaafadda Soomaaliyeed aan looga baran sidoo kale waxaan halkan ammaan iyo bogaadin uga soo jeedinaynaa wariyaashii iyo mas'uuliyiintii saxaafadda ee reer Somaliland ee xilqaame ee ka hortagay in dab laga dhaxsho wariyaasha reer Muqdisho iyo wariyaasha reer Somaliland aad baan ugu mahadnaqaynaa يمكن أن نشوف وين هذا إنه وبدأ هالكاس كتير فينك أقولك أسوج من يكون السعي صالح أو بنعي الملك فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا ومحسن هاي رنتي كلن كانوا وكوكوس أبسين هاي وأسقون نمد سيدي أنا عمبار لهن فلكي لقولك عاي عن هبونين ودوميها أوركا سكوتاجا سعفين الصومالية دي أسوج داهر عبد الله علي سو تاسو أحمد أن شرفت صحافة أن كون أكسرين. runtii waan ka xunnahay xafiiska magaalada Nairobi wuxuu dalacaynaya oo ka soo horjeeda falkaas ama wixii lagu kacay gudoomiyaha Aswaj taasoo ah mid aan ku habboonayn sumcad ahaan ama saxaafad ahaan ama shakhsi ahaan arrintu waxay ku fiicnaan haddii shirkad ama war laga qoray ama shirkadda ama loo daayo iyo dadkii arrintu ka dhaxayso si kale lagu xaliyo laakiin haddana in saxaafadda loo adeegsado oo saxaafadda dhexdeeda la isku adeegsado arrin wanaagsan ma ahayn marka sidaa darteed waan ka soo horjeednaa in wax sidaas oo kala ama ficil sidaas oo kala lagu kaco annaga saxaafad ahaan ka soo horjeednaa wariyaasha Somaliland runtii waxaan aad ugu mahadcelinaynaa wariyaasha kala duwan haddii ay ahaayeen kuwa magaalada Nairobi jooga qaybahooda kala duwan kuwa magaalada Hargeysa jooga ayaguna runtii codkooda ku taageeray kuwa South Africa jooga qaybaha kala duwan ee saxaafadda kuwa Muqdisho jooga ayaguna sidoo kale codkooda ku taageeray falkii lagu kacay gudoomiyaha ee ku taageeray kaga soo horjeestay in saxaafad ahaan loogu adeegsado ama lagu dhaleeceeyo iyadoo arrintu ay tahay arrin u dhaxaysa saxaafadda iyo shirkad gaar ah in arrintaas haddana waan ku taageerina waa lagu mahadcelinaa wariyaasha runtii codkooda ku taageeray ee kaga soo horjeestay ficil ahaan iyo weliba cod ahaan iyo weliba karti ahaan kaga soo horjeestay ka dhidhi falkaasi lagu kacay gudoomiyaha ururka isku tagga saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Aswaj Daahir Cabdulle Cali Sow waxaan markaan ku soo dhaweynayaa mid ka mid ah xubnaha sare ee ururka isku tagga saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Aswaj علي باشي سوى سجن مركز ويرا ذبل وحيابه وجهنا مسجد وأركي ممكن لك عقدونيها ورقص كتك سعفين الصوماليين. الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يليقان بجلال الله وكمال الله وعظمة الله وقدرة الله وسلطان الله دائمين بدوام الله باقيين ببقاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبته ولا ولدا وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد وذا الشركة وقربني بعد التحية والسلام الشركة الجرايد وأين السيدة وذا الشركة وقربني أنا يحرريها جود أصج يا فينكا أركا أصج سني سعيد يو فؤاد محمد علمي إنه كوكيلة بعض الصحافة قرب الجوكة صوماليات هذي جوكي لهايين عالم كدنيا دوران كوا سود أفريقيا كوا أوغندا كوا جيبوتي iyo kuwa meel kasta oo ka mid ah dunida jooga inagoo magacooda ku hadlayna waxaan si weyn uga xunaa oo aan tacaddi in ay tahayna muujinayna falkii faasha xumaa ee ay koox danaystayaal isku dayeen in ay ku dhaleeceeyaan gudoomiyaha Aswaj Mudane Daahir Cabdulle Cali Sow Daahir Yara oo ah halgamaa saxaafadeed daahir waxa uu taariikhda ka galay baal dahab waxa lagu xasuustaa halgankii uu soo maray saxaafadda siday u xiroobi lahayd isagoo dhibaatooyin fara badan u matoostay isagoo sidii shacabka
iyo saxaafadaba in ay noqdaan dad xora wax badan ka soo shaqeeya daahir taariikhdiisa lama soo koobi karo waxaa wax weyn ah oo lagu xasuustaa in daahir uu saxaafadda ugu dhaqmay sida ay tahay oo ah saxaafadda inaysan lahayn saaxiib joogto ah balse ay leedahay dan joogto ah saxaafadda saaxiib joogto ah ma laha waa sida siyaasadda oo kale siyaasadda iyo saxaafadda labadaba ma laha saaxiib joogto ah waxaa weye saxaafadda waxaa loogu talagalay inay xaqiiqda sheegto oo ay soo bandhigto marka maba samaysan karta saaxiib joogto ah waayo saaxiibka haddii uu galo khaladaad waxaa xaq aan u leynahay inaan soo bandhigno ta kale daahir waxaa si weyn loogu xasuusanayaa websayteka waaga cusub oo soomaalida in badan ay aad u jeceshahay isla markaana ah websayteka ugu booqashada badan ayaa la dhihi karaa websaytyada ka jira hadday ahaan lahayd dhanka cayaaraha hadday ahaan lahayd dhanka siyaasadda hadday ahaan lahayd dhanka dhaqanka hadday ahaan lahayd u doodidda iyo ka dhidhinta xaqa waayo xaqa soomaaliya wariyaasha haddaanahay soomaaliyeed ma ahan inaan soomaaliya dhexdhexaad ka noqono dalkaaga iyo qadiyadaada dhexdhexaad lagama noqdo marka waaga cusubna saas ayaan ku taageeri lahaa guddoomiyahana sharafta uu shacabka soomaaliyeed ku dhex leeyahay ma filayo in koox yar oo dan gaar ah leh meeshay doonaan soomaaliya ka joogaan ay arbushaad kula kici karaan somalilan waa dal walaalaan nahay waa dal aynu daris nahay waa dal aynu saaxiibo nahay waa dal aynu dad isku dad iyo isku diin iyo isku xisbi iyo isku dhinac kastaynu nahay marka suxufiyiinta soomaaliyeed hadday ahaan lahayd kuwa somalilan kuwa gobollada dhexe ee soomaaliya kuwa puntland kuwa koonfurta soomaaliya kuweena soo qaxay intaba aad ayaynu uga xunnahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu حق دور